waddanka Qatar oo ah dalka dhawaaqiisa aadka loo hadalaya sanadkani maadaama uu martigelinayo ciyaaraha caalamiga ee koobka adduunka. waxaynu isku dayi doonaa inaynu macluumaad muhiim ah ka ogaano waddankan yar ee ku yaala bariga dhexe balse qabsaday dhegaha caalamka. dadka u safraya ayaa aad u daneynaya xogta dalkan, dhaqankiisa iyo taariikhdiisaba. dadka uu ku fadhiya dalka Qatar waa 11,521 kiiloomitir oo laba jibaaran, wuxuuna ku yaalaa juqraafiyahaan bartamaha xeebta galbeed ee gacanka Carabta. dalka Qatar wuxuu ka kooban yahay dhowr jasiiradood oo ay ugu weyn tahay jasiiradda Haaluul. dalka Qatar waxa uu xad la leeyahay dhanka bari khaliijka Carabta, galbeed iyo waqooyi. sidoo kale dalka Qatar waxa uu koonfur galbeed ku xidhan yahay dalka Sacuudi Arabiya, sidaas awgeed waxaa loo tiriyaa jasiiradu Eeke. iyadiyo dowladda Bahrayn waxaa kala qaybiya gacanka dalkaasi ee Bahrayn. juqraafiyahaan dalka Qatar waa cimilo saxare ah iyo dhul dhagax ah oo ka samaysan oogada sare. dhulka dhagaxa ee fidsan waxaa dushiisa ku yaala buuro sida Jabal ad-Duqaan. goobta ugu jooga sareysa waxaa la yidhaahdaa Dawiir al-Xamiir ama dameerka ugu sarreeya. cimilada dalka Qatar ayaa ah mid kulul xilliga xagaaga, halkaasoo heerkulku uu gaadha 40 darajo, waxaana lasoo muuqdaa hurka hawada sare, halka xilliga jiilaalka dabayshu aad u badan tahay. dadka reer Qatar waxay ku dhaqmaan nidaamka qabiilka iyo reeraha. deegaan walbana waxa uu qadariyaa hoggaankooda beeleed, waxayna ku kulmaan golaha si ay u tashadaan. dadka reer Qatar waxay leeyihiin sifooyin wanaagsan iyo akhlaaq badan, waxayna ku dhegan yihiin caqiidada Islaamku ay ku dhaqmaan. sidoo kale waxay ku tilmaansan yihiin martisoorid wanaagsan iyo deeqsinimo. qaxwo iyo timir ayaa ay soo dhigaan meel walba si ay u soo dhoweeyaan u muujiyaan. rag waxay xidhaan khamiiska cad iyo cigaal, halka dumarku isku dadaan dhar madow.